malabka iyo faa'iidooyinkiisa. malabku waa kaliya ee ugu macaan waxyaabaha oo Alle ugu deeqay ummadiisa inay ku munaafacaadsadaan dunida. waxa uu kamid yahay cuntooyinka ugu faa'iidada badan ee Alle tabaaraka wa tacaala ku manaystay aadanaha, iyadoo malabka shinnidu aanu ahayn kaliya ee cunto, balse waxa uu kale oo uu yahay daawo bogsiisa xanuuno badan oo aan la soo koobi karin. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaanad ka warqabin faa'iidooyin badan oo uu leeyahay malabku. marka koowaad laga bilaabo isbedelka maqaarka saameyn weyn ayuu ku leeyahay, caawinta inuu miisaan dhimis ku sameeyo jirka. waxyaabaha fiican ee ku saabsan waa in loo isticmaalo daawooyin dabiici ah. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kaamil yeelay addoomihiisa wax kasta oo ay u baahan yihiin. quraanka kariimka ah ayay ku cadaysan tahay malabka iyo faa'iidooyinkiisa. tamar kordhin. haddii aad doonayso inaad kordhiso tamarta jirkaaga, isku day in aad malabka ku darsato qorshaha raashinka maalintii. haddii aad tahay kafeecab, fadlan yare waxa uu dilaa waxtarka malabka. malabka oo la joogtaysto isticmaalkiisu waxa uu si dhaqso ah uga qayb qaataa inaad hesho tamar. cuncunka dhuunta. xabeebta waa uu u fiican yahay haddii aad leedahay cuncun ama riraxanyo, waa mid u wanaagsan daaweyntiisa. haddii aad joogtayso isticmaalka malabka, waxaa la ogaaday tijaabo dhowaan la sameeyey malabka oo waxyaabo sahlan lagu daray inuu faa'iido buuxda u leeyahay caafimaadka aadanaha. waxa uu aad uga qayb qaataa difaaca jirka isaga oo la dagaalama jeermisyada jirka dhibta u keenaya. daraasad dhowaan la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday inuu malabku aad uga fiican yahay habdhiska difaaca jirka. haddii la joogteeyo isticmaalka malabka, waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo aan halkan lagu soo koobi karin.